الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا لي القصة عجيبة وباللغة العربية كوب حيسي أيها وحان جعليستي إنا نسو سومالي صومالي كسور لغو قصدو وورقد قرينين لحدين جرسدي مركا قرنين قران هو أها مركو حسمي معلمة كميدا إنه ورقد سوق هذي أيوه وحسك قرقري wuxuu ka hadlay aakhir sana xayaatihi wixii soo maray markaas la weynaa markaasuu dhahay sanadkan waxaa soo maray xanuun dhinac maraarada iga dhacay oo muddo badan aan isbitaal la jiifay xanuunka sababtiisa uu qoray wuxuu kala qoray inuu 60 jir uu noqday oo shaqadii 30 sano oo ka soo shaqeynayay laga soo finishay laga soo mamnuucay wuxuu kala qoray wiil uu dhalay oo kulliyada tib kulliyada caafimaadka imtixaankii u dambeeyay ku guuleysan waayay sabab daraadeed oo wiilkii shil gaari uu la dhacay shil uu galay marka isbitaal uu galay marka muddadii imtixaanka la gali lahaa sababtaasi iyo muraajacadii iyo ka gaari waayay haddana qoraalku ku soo daray ورقد آخر كذا وحقوق مركا يا لها من سنة سيئة يعني سنة كان الله سنة حن سنة إصابة سنة وقوحما إصابة مريوي وقوق ورقدي إلهي أمر كيس قاود حاسك وقبي أيو حقارك تغضي وحنو أمرك سنة يعني ماشي اللي جرى يقرويسي وبعد قليل وحقارك ورقد أكتيس تعالو وحقوق القريين warqadii akhrisay qisada hadda aan idin sheegay bay akhrisay dhinaca u baxday warqadii gidisay warqad kale ay qortay ayadana oo warqadii uu qoray ka turjumaysa laakiin qofka nolosha markuu uu soo maro wanaag iyo xumaan farxad iyo muruga wax isku dhex jira soo maraysa adduunka inta joogto هذه الدنيا maalinta adduunka waxa weeye ayada dhanba يوم لك ويوم عليك ما لا ضايس كلام مالنا وحويا لو لوليها ورقدي مركي قدسه waxay dhahday زوج الحبيب waxa ku soo maray dhahday sanad kan xanuun dhinaca maraarada kaaga dhacay oo guriga meesha maray kaaga dhacay oo dhibaato badan la kulantay laakiin ilaahay fadligiisa waa ka caafimaadey xanuunkii waa ka kacday waxa 60 jirsatay dhahday shaqadii aad 60 sano soo haysay taqaacud ka soo qaadatay waxa lagu dhahay iska naso saad u hesho jaanis raaxa ah iyo mu'allafaadkaaga iyo waxyaabaha aad soo qortay inaad dib u muraajacaysido iska nasatid guriga iska fadhiisatid mid labaad waxay dhahay sanadkan waxa nagu dhacay imtixaan weyn oo ku dhacay wiilkeena oo xaadid shil gaari uu galay laakiin alxamdulillah uusan dhimanin uusan waxa weeyaan يعني إسوتالك مليل وصنكو هنا نوجي في إسوتالكي والحمد لله حادثكي حنونكي سبضنا ومع ذلك إلهي نحريستي سكول حجرتي وعنقي حنونكي كسوك عيو ونوفي عيان قولوا يجوبوا وكلامكي انتو قري وإن لمده لكن لنا محاسنتا كما هذا سو كلية وحو جمعية وحي مرقاها gabadhan ilaah bay garanayso ilaahay u mahad celisay tabaaraka wa taala wixii wanaag ahaan bay ka hadashay warqad markay qortay ayadana waxay ugu dambeysay aakhir shay ya laha min sanatin akramana Allah fiha sanad ka wanaagsan oo ka macaan badan oo ilaahay tabaaraka wa taala musiibooyin fara badan naga badbaadiyay wax naga ikraam badan sanadkan nama soo marinay ku qortay marka walaaliyaal هذه هي الزوجة الصالحة الزوجة الطيبة ومركز وناقة كهد ليسو وحي حمان أهل إلهي وسن أتيرين إنه حويان إنها كلابانيس مركا وهناك زوجة أخرى ماشي إنه وحاك لو جير هناك قبر إنن ناقل قبو إنن يندهن إنن توحويان قبلها لقبين بالغو مقعابها صومالدو وحويان لغضو وإزب بدلاني marka meeshkal waxa jira zawja oo waxa weeyaan ka caawinaysa zawjkeeda waxay leedahay
zawjkaygu madax adeeg intuu ka batay oo waxa weeyaan madaxiisa waxba ma galaanba gaban naa kala jirto waxay leedahay alxamdulilah zawjkaygu waa tabic adag yahay oo madax adeeg badana ku jiro maca dalika yuxibunii aad ii jecel yahay waa ii naxariis badan yahay jazaahu allahu khayran markuu caraysan yahay mooyaane inta kale intuu fiican yahay ka badan kaas keliya taas waxay ku reebatay in madax adeegiisa ay sheegto keliya laakiin tan madax adeegina way sheegtay nicamullahina way soo daba saartayoo waxa weeyaan maa min niqmatin ilaa bacdaha nicma aw ilaa fii tayiha nicma yacni niqmo ma jirto mise dhibaato ma jirto ilaa waxaa aad dareemaysa inay ku dhex jirto raxma min allahi tabaaraka wa tacaala laga yaabaa in adoo gaari wada gaarigii cilad kaa gaaro oo waxa weeye lug ay kaa banjarto adna arabtid meeshii shaqada inaad ka gaartid ilaahay tabaaraka wa tacaala gaarigaasi lugta ka banjartay waxaa ku lifaaqan raxma minhu horaash waxaa dhici lahaa shil gaari iyo dhibaatooyin intaasoo ilaahay kaa badbaadiyay tabaaraka wa tacaala marka markasta mu'minka waxa weeyaan daa'iman waa nin tafaa'ul badan khayr sheegayo dhibaatada mar waliba oo afkiisa uusan ku macaansanayn cala sabiili lmithaal qaala الnabiyu sala allahu alayh wasalam markuu ka hadlayo mu'minka wuxuu dhahay cajabtu liamri lmu'min waa ninka mu'minka iimaanka rasmiga leh ayaan la yaabuu dhahay nebigu sal lla alay slam amarkiisa ina amrahu kullahu khayr maba khasaaraba mu'minka in asaabathu daraa dhibaato hadday qabato sabr alxamdu lilah leyh wain asaabathu saraa arrin farxad leh oo nicmo leh hadday soo gaartana wuxuu leeyahay ilaaha mahadle tabaaraka wa tacaala walaa yakunu lidalika ila lilmu'min aw kama qaala calayh isalaatu wassalaam arrinkaasna uma suurogalayo ilaa qofka mu'minka oo iimaanka leh mooyaane wakadalika min altaqwa alla cabsidiisa marka uu noo fasiray caliy bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu ku fasiray alqanaacatu bilqaliil min altaqwa wax yar inaad ku qanacdo in ilaahay ka cabsigiisa ay ka mid tahay marka saas daraaddeed walaalayaal yani jaanibka fiican ka fiirino xumaanta waxa weeye mar waliba aan iska qarino qofka waxaad arkaysaa qofaa wuxuu leeyahay beytii dayiq gurigayga ciriiri waaye meel lagu kala nasto ma laha mid kale wuxuu leeyahay alxamdu lilah haddaaba guri meel madax dhigta aan helay waa ilaahay mahadiye tabaaraka wa tacaala kan weyn wuu iska imaan doonaa marka labadaas waxay ku kala baxeen ninkan ilaah u mahdi celiyay tabaaraka wa tacaala ilaahay markuu mahadiis u arko wuxuu leeyahy rabb alcaalamiin lain shakartum la asiidannakum ninkaasi waxaa hubaal ah in guri weyn ku qanci doono ilaahay uu siin doono kan ilaahay dacwada ka ahoo waxa weeyaan guriga xumaantiisa ciriirigiisa keliya ka sheekeynayana waxaa laga yaabaa kan ciriiriga oo guriga yarba inuu waayo ama inuu caafimaad ku heli waayo gudihiisa ma garata walaaliyaal marka waatan nebigu markuu sheegaya sal alla alay wasalam si aan u ogaano ilaahay nicmooyinkuuna siiyey wuxuu naga reebay inaanan fiirinin dadka naga xoolo badan ama naga qurux badan ama naga dhaqaalo badan ama naga awlaad badan inaanan fiirinin bal aan fiirino dadka naga hooseeyo adaga haddaad ka cabaadid inaad caruur la-aan aad tahay waxaa jira nin aan xataa wuxuu ku guursado uusan lahaynoo lacag dhaqaalo uu lacag naag ku guursado xataa uusan gacan ku hayn haddii orosaad ku jirta ama waad guursatay ama xaaskiya kula joogo walilahi alxamdu walminna waxaa laga yaabaa inaad yacni majarato qof oo adiga waxa weeyaan kaa xoolo badan adigana dakhligaaga mise dhaqaalaha ku soo galaya dhaqaalo yar uu yahay laakiin ninka dhaqaalaha badan haysto markaad dhex geshid caafimaad la-aan iyo waxa weeye dhibaatooyin fara badana iska haysto adigana waxaaga yowmi waaye wixii maalinta ku soo gala unbaad iskaga nooshahay laakiin nolol macaanaad ku jirtaa waman yacmal min alصaalixaati min dakarin aw unthaa wahuwa mu'min allah wuxuu leeyahay falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waxaan noolaynaynaa uu leeyahay tabaaraka wa tacaala xayaato macaan oo wanaag badana noolan ayaan siinaynaa uu leeyahy rabb alcaalamiin marka dadkii fiicnaa ugu horreeyay nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam
dad ka macaan badan ama ka xayaato wanaagsan adduunka ma soo marin mana soo mari doonaan diyaaradana ma jirin dee waxa weyn qofkii uu dhaqaalo badan ayaa farda haystay dee fardaha marka la fuulaayo raaxadii dee baabuurtan dhaankurisada la saaran yahay iyo baabuurtan qurux badan la saaran yahay kuraastan fiican lagu fadhiyo ma jiri jirin marka maca dalika xayaa tayib uu noogu tilmaamay allah tabaaraka wa tacaala marka xayaatada tayibka macaanka ah waxaa la ogaaday tan ay ka buuxdo shukru nicma ilahay nicmadiisa la shukriyo ilahay loo mahad celiyo wax yar lagu qanco xayaa tayibad loo sheegaya rasmiga ah waa taa ma ahan baabuur fara badan iyo guryo waaweyn qusuur ah iyo yacni wahlo moojara waxyaabaha nagu soo dhaadhacayo markaan sheegayno ama ka sheekeynayno adduunka iyo axwaashiisa marka waa tan nabigu markuu noogu tilmaamay sal alla alay slam inaan fiirino qofka naga hooseeyo saan u ogaano qiimaha iyo nicmaha ilahay oo na siiyey tabaaraka wa tacaala marka baaraka allahu fiikum intaasaan jeclaystay inaan soo soomaaliyeeyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.